بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي وحاكسو دباتين عشردي فيسكس كي تحناها فصل خاصة فصل فون فور أتكلم سعوتين جبتر كي ساوند ويفيسكا هيرك الجبقة أيام ويلك ودح جرنا ما أنت روح عن قادم دونا إن شاء الله لسون فور 10 أفراد ونقدم دونا uses of ultrasound uses استعمال كلا استعماله uses استعماله ultrasound maxaa la ultrasound marka ka hor intaan ultrasound aan galin waxaan soo baran doonaa ultrasound ka muxuu yahay waa intaan macnaha table kana ku soo falanqeynaynaa marka sound wave frequencies rakaadyada codadka jabaqda ee mawjadaha horta saddex ayaan u qaybinaynaa mid waxaa leenahay less than 20 hertz mid wuxuu ka yareeyaa 20 hertz midna waa 20 hertz ilaa iyo 20,000 oo hertz wuxuu u dhaxeeyaa 20 ilaa 20,000 oo hertz midna waa greater than 20,000 hertz midna wuxuu ka badan yahay 20,000 oo hertz marka guud ahaan marka aan ka hadlayno sound waveska ama sound wave frequency-ga sidaas u kala jibinaynaa marka frequency mid wuxuu ka yar yahay less than 20 hertz 20 hertz ayuu ka yahay midka 20 hertz ka yar frequency-gaas waxaa loo yaqaanaa infrasound loo yaqaan jabaqdaas waxaa loo yaqaanaa infrasound midna wuxuu u dhaxeeyaa 20 hertz ilaa 20,000 oo hertz inta u dhaxeysana 20 ilaa 20,000 oo hertz inta u dhaxeysana waxaa loo yaqaanaa audible range loo yaqaanaa ama sonic audio ama sonic sound Allah marka audible range iyo sonic soundiga wuxuu u dhaxeeyaa 20 hertz ilaa 20,000 oo hertz midna wuxuu ka badan yahay 20,000 oo hertz 20,000 hertz codka ka badanna frequency ka badan 20,000 hertz ne waxaa loo yaqaan ultrasound marka guud ahaan marka soundska waxaan u qaybinaynaa saddex mid waa infrasound mid waa audible range ama sonic sound ama audio sound midna waa ultrasound marka bini'aadanka human being bini'aadanka waxay maqlaan midka dhexe oo loo yaqaan audible range-ga bini'aadanka wuxuu maqli karaa oo kaliya frequency u dhaxeeya 20 hertz ilaa 20,000 oo hertz ah bini'aadanka ma maqli karo infrasound waa cod aad u hooseeya waa bini'aadanka uusan maqli karin midkaan 20,000 hertz na waxaa loo yaqaan ultrasound wuxuu waa macnaa uma u dul qaadan karabo 20,000 hertz marka bini'aadanka frequency-ga uu maqli karo qiyaas ahaan waa 20 hertz ilaa 20,000 oo hertz marka ultrasound-ka waxyaabaha loo isticmaalo maxaa ka mid ah marka intaan ultrasound-ka waxyaabaha loo isticmaalin gelin sida hadda aan kugu sheegay waxaan falanqeyn doonaa saddexdii waxaan falanqeyn doonaa oo ahay so infrasound iyo audible range iyo waxa loo yaqaan ultrasound marka range audibility waxa la wadaa waa codka bini'aadamku uu maqli karo marka range audibility all the frequency dhammaan rakaadyada ama jabaqyada ay sameeyaan soundiga jabaqda cannot be heard ma maqli karaan by human beings bini'aadamka walax walbo sameeya cod ma ahan wax uu bini'aadamku uu soo maqli karo marka the human qof bini'aadamka anir wuxuu maqli karaa oo kaliya sounds codadka having low frequency rakaad 20 hertz ilaa iyo 20,000 oo hertz bini'aadamka intaas kaliya ayuu maqli karaa waa 20 hertz ilaa iyo 20,000 oo hertz oo kaliya ayuu maqli karaa inta u dhaxeyso noqodka codka jabaqda 20 ilaa 20,000 hertz ne waxaa loo yaqaanaa audible range saan ku soo baranay hadeertaan ama waxaa loo yaqaanaa sonic vibration marka codka u dhaxeeya 20 hertz ilaa 20,000 hertz waxaa loo yaqaanaa audible range ama sonic vibration ayaa loo yaqaanaa waayahay kan labaad waxaan ku sheegnay wuxuu waxaa jirto adana waxa loo yaqaan infrasonic soundigana asna waxaan ku sheegnay wuxuu ahaa codka ka yar 20 hertz frequency ka yar marka the sounds codadka frequency rakaadyadooda less than ay kariin 20 hertz ayagana are known as waxa loo yaqaanaa infrasonic soundiga waa wax ka yar 20 hertz loo yaqaanaa ama waxa la dhihi karaa infrasound marka infrasonic soundiga codka loo yaqaan infrasonic oo 20 hertz wix ka yar less than 20 hertz are very low frequency rakaadkooda aad ayuu u yar yahay codka ay sameeyaan sound waves ay sameeyaan waa low frequency and cannot be heard ma maqli karo by human beings mana wax bini'aadanka uu maqli karo waayahay marka infrasonic soundiga are produced by waxyaabaha infrasonic soundiga soo saara waxaa ka mid infrasonic soundiga horta objectiyadooda waxay sameeyaan waa vibrate waxay ku gariiraan very slowly gariirka ay sameeyaan frequency-gooda aad ayuu u yar yahay tusaale earthquakes dhul gariirka oo kale dhul gariirka
markuu dhacayo ama markuu dhulgariir u dhacayo koor intuusan wave-ka oo dhulgariirka uusan dhicin koor wuxuu soo daayaa sound waves ayuu soo daayaa sound waves uu soo daaya marka waxa loo yaqaanaa infrasonic sound waana cod aad u yar oo qof bini'aadamka isu maqli karin ilaa waxa maqli karo oo kaliya weyl sida nibiriga iyo elephants iyo maroodiga ayagana xayawaanada weylka nibiriga iyo maroodigana waxay ka mid yihiin xayawaanada oo soo daaya infrasonic sounding ama maqli kara marka tusaale oo kale maroodiga oo kale hadii meel oo dhul gariir uu ka dhacayo oo kale intuusan dhul gariirka dhulka uusan dilaacin koor maroodigu wuxuu awood u leeyahay codka uu sameeyo ee dhul gariirka koor intuusan dhicin shock waveska wave-ka intuusan dhulka dilaacin koor infrasonic uu soo daayo ayuu maqli karaa marka maroodigu wuxuu sameyn karaa isla markiiba waa isaga baxsan karaa goobta markii uu maqlo infrasonic intuusan dhicin earthquakes dhul gariirka marka the earthquakes dhul gariirka produce wuxuu soo saaraa wax loo yaqaan low frequency rakaad aad u yar kaasoo loo yaqaan infrasonic soundiga before core the main shock waves intuusan wave-ka shock waves uusan dhicin koor codku soo daayo waxa loo yaqaan infrasonic sound waana codka frequency-giisa aad u yar yahay xayawaanada qaarna sida maroodiga iyo nibiriga aan kusoo sheegnay weyliska way maqli karaan codkaasi and start running here waxayna awood u leeyihiin halkaas ay carraan before the earthquake occur intuusan dhul gariir weyn uusan dhicin marka laba marayna midkood waxaan soo qaadanay waxa loo yaqaano sonic vibration ama waxa loo yaqaano sonic sound ama waxa loo yaqaano audible range oo codka uu qof binaadam uu maqli karo oo 20 hertz ilaa wuxuu u dhaxeeyaa 20 hertz ilaa 20 hertz wixii 20 hertz ka yarna waxaan u bixinay infrasonic sound oo ah waxyaabaha low frequency codkooda rakaadkooda aad u yaryahay jabaqda ay sameeyaan waxaa soo daaya oo kaliya dhul gariirka iyo maroodiga iyo wax loo yaqaano weylka midka saddexaad waxaan u bixinay ultrasonic sound waana midka cashirka aan xoog ku saari doono ultrasonic soundiga waxaa loo yaqaanaa waa cannot be hit by human beings waa waxyaabo uusan qof bini'aadam uusan maqli karin maxaa yeelay frequency-ga ayaa wuxuu yahay wax ka badan 20,000 oo hertz wixii 20,000 oo hertz ka badan waxaa loo yaqaanaa ultrasonic sound ama ultrasound ayaa loo yaqaanaa marka qof bini'aadamkan uu macnaa maahan wax uu dhigiisa u dul qaadan karaan cod uu maqli karo maahan bini'aadamka marka ultrasoundka uu maqli karo marka wixii 20,000 oo hertz ka badan waxaa loo yaqaanaa ultrasonic sounds ama ultrasonic vibration ama waxaa la dhihi karaa ultrasound ayaa loo yaqaanaa marka ultrasoundka waa are very high frequency rakaadkooda aad ayuu badan yahay tusaale waxaa isticmaalay sida eega oo kale eega waa maxay eega ultrasound caadi ayuu u maqli karaa sababta eega wuxuu maqli karaaba frequency ka badan 50,000 oo hertz marka asaga maadaama ultrasound uu yahay wax 20,000 ka badan marka eega wuxuu maqli karaa wuxuu awood u leeyahay inuu maqlo rakaad gaaray ilaa 50,000 oo hertz ayuu maqli karaa marka taasi waxay sabab u tahay waxay muujinaysaa in nimanka askarta ay isticmaalaan eega u isticmaalaan waardiyo iyo dabagal inuu waxyaabo uu dabagalo marka wax asaga waxa codka uu soo daayo waa 50,000 hertz more than waa wax ka badan 50,000 hertz maadaama uu maqla ultrasoundka asaga eega aad ayuu maqli karaa marka eega saas ayay ugu isticmaalaan askarta iyo ciidamada iyo booliiska waxay u isticmaalaan inuu waxyaabo u soo raadiyo ama uu gaar u noqdo waardiyo uu u noqdo kadibna macnaha ultrasoundka soo ayuu soo daayaa ama uu maqli karaa waxyaabaha kale ee ultrasoundka maqli kara waxaa ka mid ah monkeys daanyeerada oo kale ayaa ultrasoundka way maqli karaan cats mukulaasha bisadaha iyo dolphins kalluunka dolphinka marka saddexdoodaba oo sawirka idin kaga muuqdo waa monkey iyo cats iyo dolphin saddexdoodana waa xayawaanada maqli kara wax loo yaqaan ultrasonic soundiga ama cod ka badan 20,000 oo hertz sidoo kale batis feedmertuna ayadana waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu khatarsan ee ultrasoundka ee echoga isticmaala weliba ayagoo isticmaalaya ultrasound marka batis feedmerta ayadana ama kibiligiis sida dadku u yaqaaniin wuxuu soo daayaa isna ultrasonic sound ayuu soo daayaa marka uu scream uu sameynaa markuu qaylina markuu cabaadayo marka anaga bini'aadamka marka ma maqli karno codkaas uu batis feedmert u soo deynaya maadaama uu yahay cod ka badan 20,000 oo hertz ah waayahay meesha marka waxaan kaga baxaynaa saddexdiis aan usoo kala qaadnay soundiga oo ahay sonic vibration iyo infrasonic vibration iyo ultrasonic vibration ama waxaa kaloo dhihi karaa infrasonic sound iyo audible range iyo wax loo yaqaan ultrasound marka waxaan galaynaa marka waxyaabaha loo isticmaalo ultrasound maadaama ultrasoundku uu ka mid yahay waxyaabaha ugu caalimsan ee la isticmaalo waxaa ka mid ah marka ultrasoundku waxaa isticmaala khaasatan warshadaha ayaa loo isticmaalaa iyo isbitaalada waxaanay u isticmaalaan isbitaalada qaab daawo ahaan ayaana loo isticmaalaa
marka saddex application waxaan qaadanaynaa saddex use isticmaal ee loo isticmaalo ultrasound-ka ama application loo isticmaalo ultrasound-ka waxaa ka mid ah marka kow waxa loo yaqaan sonar oo loo soo gaabiyay sound navigation sonar waxa la soo gaabiyay sound navigation and ranging ayaa laga soo gaabiyay lambar 2 waxaan isticmaali doonaa waxa loo yaqaan ultrasound scanning waxyaabaha scanka loogu qaado ultrasound-ka iyo ultrasound cleaning iyo waxyaabaha loo isticmaalo ultrasound-ka waxa kale oo loo isticmaalaa nadaafada ayaa loo isticmaalaa marka kan koowaad ayaan guda galaynaa marka kan koowaad ayaan sharaxaad ka bixinaynaa sonarka maxaa la marka sonarka waxa laga soo gaabiyay sound navigation and ranging sonarka asal ahaan marka aan leenahay sonarka asal ahaan marka rabnaa sharaxno sonarka wuxuu diraa waxa loo yaqaan echolocation ayuu jiraa echolocation waa soo baranay cashir kore ku soo baranay echolocation-ka waa waxyaabo lagu soo ogaado masaafada uu gunta hoose uu sheygu u jiro ayaa lagu soo ogaadaa marka sonarka waxyaabaha isticmaal waxaa ka mid ah sida ships oo kale markabyada markabku wuxuu isticmaalaa sonar marka sonar ayuu diraa sonar marka waa echolocation waa marka sonarkaas codka marka la diro kadib wuxuu soo cabirayaa ultrasound ay diraan marka ultrasound markay diraan shipska ultrasound marka la diro wuxuu soo cabirayaa waxa loo yaqaan gunta hoose ee dhulka marka si loo cabiro marka biyaha masaafada dhulku u jiro ama walaxdii reflection la rabo in uu soo celiyo ama derbiya ama jamal whatever wax walba wave ka soo celinaya ayaa lagu ogaadaa marka marka echolocation-ka la diraa echolocation-ka marka echoga dayaanka marka kulama dayaanka uu soo daaho kulama marka uu depth-ga ama qotada ama guntiga hoose uu aad u dheeriyaa marka hadduu echoga uu isla markii uu soo laabto biyaha marka distance-ga way macnaha way dhow yihiin hadduu marka ships markabka uu wave uu diro sound waves uu diro uu ka soo waxa loo yaqaan ultrasound markuu diro echolocation la soo ogaado duu soo daa echogana macnaheedu waxay ogaanayaan in uu gunto depth-ga ama masaafada markabka iyo u dhaxeeya gunta hoose biyo ayay ku soo ogaanayaan marka kadib echo time-ka la cabiraa marka waxyaabaha isticmaalka waxa kamid ah waxaan u bixinay markabka oo kale ayaa isticmaala marka sidoo kale waxyaabaha isticmaal waxa kamid ah batiska iyo dolphins-ka ayagana waxay isticmaalaan sound waves say marka ayaga ay waxyaabo ugaarsigooda ay macnaha ay ku ogaadaan marka sound sonarka marka asaga xeerkiis wuxuu marka sonarka waxa la sameeyaa sonarka marka waxa sameeyaan waxa la dirayaa marka sound wave la diraa kadibna echo ayaa la dhageysanaa sida hadda macnaha idin kugu soo koobay marka the longer it takes kulama uu ku dheeraado waqti dheer uu qaato echo-gu turitaan soo ku soo laabto the farther away intaas wuxuu ka fog yahay objectiga la rabo in la soo ogaado that reflected those waves uu kale marka inta hadduu echo-gu soo daa meeshaad u dirtay macnaha qofku wuxuu ogaanayaa masaafada inay aad u fog tahay marka sonarka waxaa loo isticmaalaa sida kalluunka oo kale waa loo isticmaalaa dadka kalluumaysatada oo isticmaalaan si ay u kalluumaystaan marka waxyaabaha kale loo isticmaalo waxaa kamid ah marka anagoo sonarka faa'iideysanayna waxyaabo kale waxaa jira waxa loo yaqaan radarka marka ayaga waxaa isticmaalo sida dayax gacmeedyada oo kale iyo waxaa isticmaalo sida in lagu ogaado gantaalada iyo waxyaabaha markabyada naftikooda baa isticmaala marka radarka marka asaga ultrasound ma aha radarka marka waxaa loo yaqaanaa microwave aa la diraa microwave ayaa la diraya marka microwave-kaas la diraa marka radarka marka wuxuu yahay asaga marka waa asna waa nidaam waaye taasoo la isticmaalaa microwave la isticmaalaa si loo soo ogaado angle xaga macnaha sida xagalaha oo kale xagasha uu macnaha sida oo gantaalka oo kale ama dayax gacmeedka intuu ku sameysmo iyo xabaaraha speedka uu ku socdo sida dayax gacmeedka oo kale ama markii la soo diro gantaalka oo marka la soo diro si loo soo ogaado gantaalka speedka uu ku socdo ama xabaaraha ama velocity-ga gantaalka si loo soo ogaado waxa la diraa waxa loo yaqaan radarka la diraa marka radarka marka microwave waa marka radarkaas la diraa kadib waxa la soo ogaanayaa speedka ama angle-ka ama waxyaabaha marka uu xabaaraha uu ku socdo waxaa kaloo kamid waxyaabaha loo isticmaalo use of ultrasound hadda soo qaadanay waxaa loo isticmaalaa cleaning ayaa loo isticmaalaa oo nadaafad ayaa loo isticmaalaa sida waxa loo isticmaalaa sida qasaalada oo kale dharka lagu dhaqo waxyaabahaas ayaa ultrasound-ka loo isticmaalaa waxyaabaha kale waxaa kamid ah ultrasound-ka scanning in scan laga qaado scan waxaa loola jeedaa ilmaha oo kale intaysan dhalin oo kale hooyada xaamilada leh marka isbitaalada hadda qalab waxaa la keena oo ultrasound la keena qofka automatically hooyada cunugeeda waxaa laga tusayaa shaashada laga tusayaa asoo dhaqdhaqaaq sameynaya waxyaabahaas oo idil marka sababta maxay ku dhacay sababta waxay ku dhacday ultrasound ayaa marka qalabka ultrasound ayaa loo diraya marka echo waa loo dirayaa
marka waxay marka echogaas marka wuxuu gaarayaa cunugii kadibna lafiisa kadibna reflection ayaa soo naqa marka reflection ka soo laabta ayaa hooyada waxa laga tusayaa shaashada ayaa laga tusayaa marka pictures